maamulka Puntland ayaa war ka soo saaray hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ku dhawaaqay kaasoo uu yiri in kooxda argagixisada ay qaadan karto kaarka aqoonsiga hay'adda NIRA ee waayii ugu dambeeyay hadalhaynta soo taagnaa. maamulka Puntland waxay sheegeen in cidii lagu arko kaarkaasi NIRA oo Puntland ka tirsan la xiri doono oo xabsiga la dhigi doono, tallaabo adagna laga qaadi doono. dhinaca kale maamulka Puntland ayaa jawaabo kala duwan ka bixiyay hadalkii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ee ahaa in dowladii kacaanka Jaalle Maxamed Siyaad Barre ay 21 sano oo jahwareer ah ay ku riday ummadda Soomaaliyeed oo waxay qabatay aysan jirin, isla markaana ay ku jirto 20 sano gaardin iyo jugdhac waa soo hadalka u dhigay. wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland ayaa qoraal u bartiisa Facebook soo dhigay. waxa uu yiri ra'iisul wasaaruhu waa magalooti labadii kursi ee dalka ugu sareeyay waxa gacanta ku haysta hal nin oo isku qaatay kaasoo ula jeedo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Puntland ayaa si weyn ugu dagaalamaysa dhanka warbaahinta iyo sidoo kale mikrofoonka, iyadoo wasiiradu si isdaba jooga ay jawaabo iyo sidoo kale hadallo xanaf leh ay baraha bulshada u marinayaan. bal waan dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay iyo sidoo kale hadalkii madaxweyne Xasan oo noqday hadal saameyn badan leh, isla markaana falcelin badan ay ka dhalatay ayaan soo qaadan doonaa hadduu allaydmo. soo dhawaada idinkuna aragtidina igula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabay maamulka Puntland ayaa jawaab adag ka bixiyay hadalkii madaxweyne Xasan. wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Maxamuud Caydi Dirir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qofkii Puntland ay ku aragto kaarka NIRA waa kaarka aqoonsiga ee hay'adda NIRA loo soo gaabiyo ay xabsiga dhigi doonto, tallaabo adagna ay ka qaadi doonto. waxa uu wasiirku sheegay in kaarkaasi uu mamnuuc ka yahay deegaanada Puntland, la xiri doono cidda lagu arko. jawaabtan Puntland ama hadalkan wasiirka ayaa kusoo beegmaya xilli maanta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in kaarka aqoonsiga ay qaateen kooxda argagixisada. madaxweyne Xasan oo hadlaya ayaa yiri kaar waxaa la ii sheego hay'adaha amnigu ii sheegeen in kooxda argagixisada ay dad soo dirtay oo tiri ordo oo kaarka aqoonsiga doonta. waxa uu iskugu jawaabay ha qaataan siiya kaarka aqoonsiga wajigay doonaan iyo siday doonaan iyo qaabkay doonaan ha ku soo doontaane kaarka hal la siiyo buu yiri kooxda argagixisada. hadalkan ayaa falcelin xooggan ay ka dhalatay saacadihii la soo dhaafayna warbaahinta Soomaalida ayaa si weyn u qaada dhigaysa, iyadoo oo dadku ay la yaabeen hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxa lagu qiimeynayaa markaasi la leeyahay madaxweynuhu gabadhac badan ayuu sameeyay. hadalkan hadal diblomaasiyadeed iyo hadal madaxweyne toona ma aha. midu waa xaqiiqooyin kooxda argagixisada wixii dalka ka jiro ay iyadana qaadanayso, wixii shacabka Soomaaliyeed ay qaataan iyaduna way qaadanayaan oo waa la isku dhex jiraa oo waa la isdhex socdaa. oo kooxda argagixisada waa hubaal in ay Muqdisho sharciyada laga qaadanayo iyo wax walba oo Muqdisho ka jira ay qayb ka yihiin ama dalka Soomaaliya gudihiisa oo dhanba, balse si diblomaasiyaysan ayay ahayd baa la leeyahay in madaxweynuhu arrintaas uga gaabsadee, ma ahayn in isagoo madaxweyne qarana uu public u soo istaago. falanqeeyaasha siyaasadda Soomaaliyeed ayaa waxay leeyihiin dhaawac siyaasadeed mid dhaqaale ayay u keenaysaa baa la leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. arrin ku habboonayd ka hadalkeeda ama ku dhawaaqisteeda in noocaas uu ku dhawaaqo madaxweyne dhan dal qaran inuu ku dhawaaqo ma ahayne in uu arrintaasi ka aamuso ayay ahayd oo uu ku koobnaadaa la leeyahay sharaxaadda qaadashada kaarka NIRA iyo weliba faa'iidooyinka ummadda Soomaaliyeed oo u leeyahayba. kooxdu waa Soomaali intooda badan markii laga reebo xubno markaasi iyagu ku gabanaya oo dalal shisheeye ka yimid. waa hubaal in wixii gudaha dalka ka jira iyagana ay qayb ka yihiin, balse haase ahaatee waa koox argagixiso dagaal lagula jiro, dhibaato badan ku haya shacabka Soomaaliyeed, dunida dhan khalkhal iyo dhibaato ku haya, caalamkuna uu taageero badan oo dhan amni iyo dhan dhaqaalaba uu Soomaaliya ka siiyo. sidaa awgeed ayaa markaa ay noqotay arrin lala yaabay ku dhawaaqisteeda madaxweynuhu uu ku dhawaaqay. dhinaca Puntland haddii aynu kusii soconno, Puntland waxa ay leedahay kaarka NIRA horeyna way u diiday,
haddana madaxweynihii soomaaliya wuxuu leeyahay kooxda argagixisada ha qaadato sidaa awgeed puntland qofkay ku aragto kaarka niira xabsiga ayaan dhigaynaa buu leeyahay wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland waxay sidoo kaleeto puntland ay jawaab adag ka bixisay hadalkii xamse cabdi barre ee ahaa in dowladii kacaanka jaalle maxamed siyaad barre allah u naxariistee wax ay qabatay uusan jirin arrintan hadalhayn weyn bay abuurtay siyaasiyiin badan baa kasoo jawaabay mas-uuliyiin badan baa ka hadlay shacabka soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan iyagana uga hadlay haddii in yaraan ka taabto intaana u gudbin puntland iyo jawaabteeda dowladdii kacaanka jaalle siyaad barre dowlad ka dambeysay ama ka horreysay oo wanaagsan oo awood leh ma jirin sanado yar ayaan curdan baan ahayn xornimadii markii aan qaadanay 9 sano meelahaas bay markaa dowladdii ka horreysay jirtay inta 9 sanana awood meena soo yeelanina waxaan ahayn dad dowladnimada iyo systemka iyo inay iyagu ismaamulaanba aad iyo aad ugu liita ayaan ahayn 21 sano ee jaalle maxamed siyaad barre allah u naxariistee ayay dadka soomaaliyeed si fiican isku raaceen awood yeesheen halgan galeen ummadda soomaaliyeedna xuquuq ay u siman yihiin heleen xamse cabdi barre haddaan dib ugu laabto deegaan ahaan iyo isagu waa nin daarooda weliba ogaadeena xilliga iyada deegaanada ay reerahoodu degaan inta badan waxay ahaayeen dad aan muwaadiniin soomaaliyeed aan ahayn ninkii ummadda soomaaliyeed isku soo celiyey isku keenay yidhi soomaali ninka degan soomaali galbeed NFD oo Kenya iyo ninka hargeysa jooga ka muqdisho jooga way u siman yihiin xuquuqda waxa uu ahaa jaalle maxamed siyaad barre allah u naxariistee qofka taariikhdiisa inuu baabiyo masaxo ma aha waa inaad taariikhdaada ku faanto waa inaad waxaad heshaad ku faanto waa in qofka walaalkaa wuxuu qabtay inaad ka hadashid baa la rabaa oo xaqiiqda uga hadashid qofka muwasuulka xasan haddaan dhahno meeluu ka fiican yahay ma lehe aan iska turno dhahno taariikh la-aan wey waxuu qabtay ma leh waxba ma haddii la dhaho dee arrintaasi waa gaf iyo khalad weyn weeye 21 sano oo siyaad barre uu maamulayay dalka ayuu xamse cabdi barre ku tilmaamay mid ummadda soomaaliyeed jah wareerisay oo laga faa'iiday oo keliyu gaardi 20 sano oo gaardi ah gaardi un baa lagu jiray buu gaardi 20 sano oo gaardi ah gaardi bas lagu wax kale ma jirin buu yiri khaatumo xumayna ku dhamaatayoo waxay ahayd buu sida ay ku dhamaatay bay ahayd 21 sano oo halgan dheer ay Soomaalidu gashay oo dunidu ay ka yaabtay oo dowladihii dhannaa markay adiga awooddaada ka yaabana la yidhi tani sidan laguma dhowran karo oo gooyaha intii lagaa maray lagu burburiyey oo Afrika iyo dunida dhanba ay ku aqoonsan tahay libaaxii Afrika inaad ahayd oo lambarka aad gaadhay weli dal Afrika gaadhay uusan jirin inaad adigu taariikhdaada masaxdood baabiiso waa dadnimo xumo waa aragti gaabni waa arrin run ahaantii aad iyo aad u foolxun weeye puntland arrintaasay marka ka carootay ka jawaabtay wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland oo arrintaa ka jawaabaya wuxuu yidhi ra-iisul wasaaruhu waa magalooti waxaa laga yaabaa soomaalidu inaysan in badan oo ka mid aysan garanaynin waa qof aan waxba lagu halayn karin oo lagu aamini karin waxba laguma halayn karo macnaha magalooti waa qof taagan oo waad aragtaa inuu qof jooga yahay wuu joogaa laakiin waxba looma dhiibi karo waa marka waa magalooti labadii boos waxa isku haysta buu yidhi hal nin oo isku qaato isku maamulanaya xasan ayuu ula jeedaa puntland horey bay u tiri madaxweynuhu waa marxuum cay iyo aflagaado badan dusha way ka saareen wax fiicanna maaha kolley in lays aflagaadeeyo aflagaadadu wax fiican maaha aad iyo aad baan uga xumay in madaxdii qaranka madaxdii Soomaaliyeed ee heer gobol iyo heer kilal waxa weeye federaalba in waxa weeye mas'uuliyiintu ay iscaayaan iyadoo mas'uuliyad weyn ay u taalo oo dadkii Soomaaliyeedba ay dhiban yihiin oo waxa weeye rafaad badan ay ku jiraan wax lagu farxa ma aha si kasto ay noqotoba puntland arrintaa waxay ku tilmaantay arrin gaf iyo khalad ku ah marxuumkii dhintay dalkan taariikhda badan u soo hooyay muddada badan soo xukumayay halgamaaga ahaa in waxa weeye maanta madaxweyne qaran oo Soomaaliyeeda madaxweyne awood loo ama dawlad awood loo ka dambeysayna ay baan inoo dhalanin oo aysan jirin in la aflagaadeeyo gaf weyn iyo khalad weyn
ayay puntland ku tilmaantay. si kastoo noqotaba weli waxaa taagan hadalhaynta kaarka niira iyo hadalkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud. puntland